waxa weeye khudbad madaxnimo ayuu akhriyay statement speech uu sameeyey waan ku taariikhdeynaya madaxweynaha shirka hadalkiisii statementkiisii mutakarnimo ahayd si fiican buu hadlay waxaan jeclahay inaanu hadalkiisa oo kaga dhameeyo madaxweynuhu annaguna waan garab siinaynaa doorashada cid kasta waa wadan weeye ciddii hadda wax kala keenta waxaan u aragnaa un inay marmarsiyo tahay is hortaagayso in dalku socdo oo ma garanaysaa uu dalku horumar keeno oo dalku uu ka baxo eedan laynoo eeday leeyahay dumaraadii ma sheegan kartaan. gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wiciid ayaa sidoo kale ka waramay kulan dhawaan dhexmaray asxaabta siyaasadda iyo komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland. waxa weeye axadii saa aragteen waa noo yeeleen guddiga komishanku waxay keeneen timetable bay keeneen timeline ay yidhaaheen 9 bilood waxay ku dhacaysaa bisha May. annagu waa markii saddexaad aan wada fadhiisanay annagu waxay noo muuqatay inay waqti ka horeeya la qaban doono maadaama aynu haysano ilaa 1 milyan oo qof oo hadday noo diiwaangelinaysaa dadka isdiiwaangelinayaana laga yaaba inaanay 300 kuma gaarin iyo toofiir gaar la siinayo deegaanada magaranaysaa sanaagta bari iyo soosha koonfureedba iyo buuhoodle. Faysal Cali Waraabe ayaa sidoo kale ka hadlay golayaasha kala duwan ee muddaxiroodkoodu dhamaaday inagoo 30 sano alxamdulillah rabbil caalamiin nabad ahayn ilaa 6 doorasho qabadayna inay baarlamaankeenu iska fadhiyo dawladahayna hoose iska fadhiyaan guurteena isdhaxasho wax laga qiiqsoodaa weeye waxaan arkaa ragga qaylqaylinaya mar baa jirta ilaahay subxaanahu wa ta'aala sheego toobad aan la iska aqbalin maanta oo kale toobad laga aqbali maayo 15 sano joogay meel laga soo doortay ma tagaan waddanka wax loo soo kordhiyaan haddana la yidhaha waxa la qabsado waa caytamiyaan marka waxaan leeyahay loo joojin maayo qof jeclaay qofna cala doorasho dhacaysa biidnaahi kariim. gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wiciid ayaa bulshada Somaliland uga digay inaanay isu adeegsan aafada qabyaaladda qabiilka hala joojiyo ciddii wax cabanaysa administration ka cabato madaxweynaha ha cabato wasiirka xildhibaanka laakiin ay reerahan laga cabanayo reer hebel inaga joojiya reer hebel waa tii Soomaali biibaysay waa tii dagaalka sokeeye dhaysay waa tii xasuuq ku dhacay waa tii la saamaxay in afka la bedelaa way ciddii ka cabanaysa cidda maamulka haysta ka cabato ay wax xumaanayso laakiin in reer la isku qaado oo maanta si reer loo hadlo dadka loo cambaareeyo waxaan arkayaa inay taasi fidma tahay dawladdu waxaan leenahay laga soo saaro sharci. ugu dambeyntii Faysal Cali Waraabe ayaa madaxweynaha Somaliland u soo jeediyay in uu gogol u fidiyo cid kasta oo tabanaysa madaxweynaha waxaan leenahay cid alaa ciddii wax sheeganaysa ee tabanaysa goosh u fidi dhegeyso grievance address kale qofku le waxbaan tabanaya beelku waxbaan tabanaya dee uu fariisto tabashadka waa ka raadida waa inuu garoodo waxay garasho ku leeyihiin waxaana garasho leeyahay way qanci doonaan laakiin in albaabka la kala xidhan maaha albaabka madaxweynaha uu furo dadka uu furo albaabka madaxweynaha haday dan ku tahay dalka u dan tahay intaas ku nool reer Soomaaliya